guri cusubaa la dhisee soo baxaa soo fiirine fadhi cusubaa soo baxee jiif hebelaa soo baxee decoration hebele waa soo baxee magaaladani waa magaalo buufis waa magaalo qof walba uu rabo mar la ilaaho iga bixi Nairobi dadka halka deegaan ku yihiin oo ma arkino ay kibaandhasay ku goostaa see baasaboorkeeyo ku helaa anigaygaanba markaas ka soo qaado guriga ugu qurxoonina dega waa jeclaay laakiin dantii ma saamaxayso maxaan ku raadayay nolosha ugu qurxoonaan jeclaa laakiin waa ina tayda ma arkino alxamdulillah intii soo gasho waa ina ku xisaabtamaa marka fursadaasna way jirtaa oo dadka ma arkino reer Kampala yacni aysan wax walba ay qaali u leeyihiin wax yar markay ku soo galaan wixii weyn qaali kula tahay marka sababtaas keenayso Nairobina ma qaan aniga ma sha Allah magaaladaas waa ka soo helay marka tagti qalbiga taajir ka noqonaysa yacni dadka iyo hankooda warhanka xataa in la fiicnaysi way fiican tahay oo han weyn aan lahaatid si wax weyn Ilaahay ku siiyo marka assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta qaaliga YouTube channel-ka nagala socotaan qoyska qarniga walaashin Shams marka la isku soo noqdo wanaagsan walaalii hor noola joogi walaalaha gadaal looga soo biiray dhamaantii soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin wadadii 60 kuna u socnaa insha Allah markaan 100 kuna haweysanayna alxamdulillah waxa Ilaahay uga mahad celinayaa anoo nabad qabina idin soo noqday adinkana sidoo kale Ilaahay idinka rajeenaya maanta xoogaa mugdiya dareemaya igu qaatay insha Allah fadhiga xataa waa ka soo guuray inta imaad waxa intuu imaad xoogaa iftiinka ama inta roon yahay islaam fahanteen marka taasna la socda insha Allah waxa jiro asxaabta qaar oo iga soo codsatay Shamsay Nairobi iyo maxaan ku yiraahdaayay Kampala maxay ku kala duwan yihiin maxay Nairobi Kampala uga fiican tahay Kampala maxay yacni ka soo hadal Nairobi iyo Kampala farqiga u dhaxeeyo ka soo hadal la igu dhahay horta Kampala waa magaaladeedii labaad wadankeygii marka ka soo baxay waa meeshii koow ah imaaday qurbanacasba waa meeshii aan koow ka imaaday ma fahanteen in badan ku noolahay adu 10 sano waa ku noolahay hadii sajajab ila jirin ma fahanteen horta Nairobi na dhowr mar waa tagay ma xisaabi karo dhowr mar aa tagay Nairobi hadii 5 mar dhameen way ka badan tahay inta Nairobi tagay san qiyaasayo waxa jirto Nairobi iyo Kampala ay ku kala fiican yihiin horta qofka Nairobi jooga iyo qofka Kampala jooga qofka Nairobi jooga qalbigu taajirka yahay qofka Kampala joogana dabcan bay'ada ka dhigtay inta ugu badan dadka san ka arkay waa dad qalbiga faqriga ah dadka Nairobi joogo waa dad maxaan ku yiraahdaay hadii wax gadasho la dhaho hadii guri qurxoona la dagaa la dhaho hadii yacni wax isku quurid la dhaho waa dad wax isku quura laakiin magaaladan Kampala ah way yartahay dad wax isku quura wax isku quura markaan dhahay waa shakhsiyan qofka naftiisa yaa ma ka hadlooyo qof kale wax uma quura ma ka hadlooyo taas ina taas la fahantaan rajeenaya qol iyo maxaan ku Nairobi waxa arkaysaa qof guri ku degan konton kun ka imani maxaan ku yiraahdaayay 7 yacni qofka Nairobi jooga waa qof wax isku quura qofka Kampala joogana bay'ada ka dhigtay anigaygana isku soo qaadanaya Nairobi markaan tago qalbiga taajiranka ah because bay'ada iyo dadka iyo arkaya qofka jooga Kampala markaan ku soo noqdaa rabaa Kampala markaan ku soo noqdana qalbigan faqri ka noqdaa waa bay'ada dadka ma aha qaladka waa bay'ada oo xaq ii tagay shaxaata azimo mamiyo ma fahanteen Nairobi waxa arkaysaa qof tusaale ahaan fadhiyo wuxuu ka soo baxsanayaa $1,000 iyo intii ka badan 1,500 2,000 3,000 dad fadhi ka soo baxsanaya arkaysaa meeshan hadii Ilaahay ku roon yahay 2 milyan xataa fadhi kama soo bixinaysid no oo fadhiisahay asmo dhibka naga dhaafee fadhiis halkaas meeshan fadhi 2 milyan xataa saa ku gadato adagta dad gataa way jiraan oo dadka qaar waxa laga yaabaa soo dhaana anaga waa gadanaa war waa gadatiin ma gadatiin la isku ma haysta laakiin bay'ada laga hadlayaa sida u badan 2 milyan fadhi kuma gadanaysid ku dhax guri markuu qof tagaayo milyan qac milyankii wax weyn nalka hadda qoli fadhiya milyan ah milyanka waa $300 markii la sarifo xataa waxba sii dhimaya $300 xataa ma dhama milyanka laakiin ku dhowdo waa $290 meelahaas u maleena marka dadka inta joogo
magaalo ahaan dhaqan ahaan dad ma arkinoo wax isku quura ma ahan oo shaqsiyan aan ka hadlooya yani ila fahma warka meel kale ha geynina dadku wax iskuma quuraan waa isnecab yihiin ma ka hadlaayo laakiin shaqsiyan dadka yacni wax qaaliyo inay gataan ma rabaan waana magaalada guri qofkii qol iyo fadhi malyan ku dego wax weynay tahay meeshaan heblaayo guri malyan ay degan tahay hadda malyankiiaba qiimo beelo lacagtii baraka ma leheba noqotaba ma fahmaysaan nairobina qof waxaa arkaysaa 80,000 100,000 120,000 50,000 guri ku degan inta way jiraan dad guryo $400 ah degan way jiraan $500 xataa inay jiraan waa u malaynaa laakiin ma u badno halka Nairobi ee waxaas wax weyn ka ahayn inta wax weyn ka tahay qofkii guri $500 degan magaaladan uu ka tilmaamay dadka abo heblaaya maxaa moodaa difaacaya $500 guri ku deganta Nairobi waa 50,000 iyo jajab wax weynba kama ahayn waa guryaha ugu raqiisan baa dirtaan guriga cusub oo hadda farta laga tiray 50,000 waa ka badan yahay guriyihii horaaba lagu helaa hadirtaa marka magaalada Nairobi iyo magaaladan waxay yacni farqiga u dhaxeeyo dadka xagga jooga waa dad gacantoodu furan tahay markaa dhahay waa dad wax gadanayo oo yacni nolol qurxoon inay ku noolaadaan rabaan halkaan markaa joogtina qabiilnimaa baranaysaa wax walba inay wax kaaga soo haraan wax walba midda kale dadka xagga joogo waa dad maanta oo dhan guri cusubaa la dhisay soo baxaa soo fiirine fadhi cusubaa soo baxee jiif hebelaa soo baxee decoration hebelo waa soo baxee magaaladani waa magaalo buufis waa magaalo qof walba uu rabo mar le ilaahu iga bixi Nairobi dadka halka ay deegaan ku yihiin oo ma arkinoo ay kibaandhasee ku goostaa see baasaboor kenyaan ku helaa see ma arkinoo aan ku shaqaystaa see aan kan ku samaystaa guri hebelo intay ka degaa meeshay dadku ka fakarayaan xagga meeshaan waxaa waa see ku dhoofaa guri feefaa soo baxay leen oo hebelo waa la gadanaya intaan raqiis ah ha lagu wada yaaco maxaan ku idhaahdaaye heblaayo maxalaaye waa wadan hebelaa qaatay heblaayo way dhooftay way qarsatay heblaayo caafimaada loo soo lajiyey hebelo interview waa u dhagan stocktoka ugu dheerbo oo 5 biyaaniya Soomaaliyeed maalin horta arkay 5 biyaana waa dabaq ugu dheer Nairobi waa aragteen ma sha Allah daaraha ilaa 10 kor u dhaafay qaarkood 10 tirne dabaqyada waaya marka magaalada farqigaas u dhaxeeyo waa dad saas bahasha ya xataa qofka business inta ku samaystay ka xagga ku samaysta ka xagga xoogaa oo qofku yacni ciyoob u kala kacaa magaaladan waa magaalo xooga iska dansan laakiin hadda soo ilbixaysaa Kampala businesskii cosmeticskii ma sha Allah ku dhaw waa la isku faanooyeen dukaamadii shaqooyin aan hore laga aqoonin ma sha Allah shaqooyin hore loo sameyn jirin kaal iska arag magaaladan horta hadda soo kacaysaa magaaladan waxaa imaaday hal ma arkin suuq oo laki kombalkis la dhahay isagoo ku yaala magaalada imaaday waagaas hadaan shaqo iyo dhaqdhaqaaq sameyn lahaa fiican ya dadka magaaladan lagu tashtaa kamid ahaa laha laakiin dadka markii ma arkin oo aad wadankii ka imaaday waa loo kala dhashaa firfircoonida iyo shaqada shaqooyinka qaar waa ka faani jiray dad saasana way jiraan fahmaysaa oo shaqooyinka hoos inay kasoo bilaabaan jecel hadda kor meel shopping yani shopping jimlaha inta dirsadaan waxaan rabaa inaan shoppingki wareejiyo dukaamada jimlahaan u siiyo markaas dukaankii nin joogo ma gargaraacay dukaankii gabar joogtaan tagaaya baa shopping jimlaha wada kaaliska arag wixii ilaahay kaaga soo qaado waa lagu soo dhaweynaa wixii kaleetana waa kasii soconaysaa marka labadaas magaalo farqigaas u dhaxayso Nairobi barabaraha dhar iska waranaysaa maxaan ku raacay cambuula banaanka la fadhiisa inkastoo intaba ku arkay laba gabdhood habeen dhaxaas cambuula banaanka la fadhiyo maasha Allah u barakay barabaraha saa waranaysaa waxaan ku dhahaayay smoking miya ma qalin dhar sausage-ka smoking oo Swahili amalena sausage-ka gabdho wareejinaya hadda Nairobi ku soo arkay shaqo Nairobi aan laga shaqeeynin Soomaali ka shaqeeynin ma jirto magaaladana shaqooyinka qaar waa lagu caynaya hoos dhanba shaqo laga soo bilaabo waa la isku caaya waa magaalo xooga adiga waa magaalo gobol ano maqal jirno magaalada city dadkan reer gobol ka imaadeen oo maqal jirteen magaaladan markii Nairobi loo fiiriyo waa gobol dabcan reer Kampala iga raali noqdo laakiin waxa jira ka hadlaaya waa gobol camal dadka jooga xooga taamisan halka dadka Nairobi yani shaqo ay shaqo u tahay ka dukaan kale mid shaah wareejinayso mid canjeerada dubayso mid barbaraha aadayso mid jalaatada wareejinayso wax isku mashquula wax ka sheega markis laakiin magaalada hada shaqo hoos ka soo bilaawdo naahiblaayid me ka jabanta ayaantan maxaa lahaayay bijiyo wareejinaysaa ama cambuula jidka fadhiisa lagu dhaha magaalo oo hadda shaqada fahmaysa waaye marka xoogaa way kala
gacan furan yihiin wayna kala qalbi fiican yihiin qalbiga fiican dad xun waa Kambaala jooga ma dhaweey laakiin dadka xagga jooga waa dad saas bahash yacni gacan furan dadka inta joogana waa dad laga yaabay dadka dad la soo biili inay yihiin haddii magaalada laga shaqeynayo shaqada mushaarka loo qaadanayo waa shaqo yar dadka ku nool iyo dadka Nairobi ku nool waxay farqi ugu kala dhexeysaa xagga wax kasta shaqooyin fara badan xagga fursado badan xagga laga helaa inta laga sameeynin oo laga aqoonin kulay dadku ay isbindha jooskooda ahayn waa qof la soo biilaayo iyo qof shaqo yar shaqeeyo iyo maxaan ku yiraahdaaye iyo qof yar oo iska xamaasho waxaas marka ay helaysid yacni wax saarta ugu kifaaxi kartid maahan wayna jiraan dad nolol qurux badan ku nool Kambaala jooga way jiraan oo markii maasha Allah ah marka duruufta qofka markaas haysa baa ma arkin oo qofka Nairobi jooga la simi karin dabcan saasa u qiyaasay waa dad han weyn aan dhihi karaa dadka xagga joogo dadkaanba dad xun ma waa dad han weyn laakiin xoogaa qof walba duruuftiisa xanibayso yacni markaas beeska oo markaas ku habboon ku xanibayso yacni in ay faanteen arjeenaya in magaaladan si gooni uma dacaadeenayo waxyaabaha aan arkan ka hadlaya muuqaalkan waa nagu dheeraad insha Allah waa kala joojinayna shaqooyinka marka shaqooyinka Kambaala ka banaan hataa jeceshin inaa ka soo hadlo iyo qaabka ay bulshada u aragta falcelinta dadka qaar ay u arkaan qofka markuu shaqada hoose ka bilaabo hataa jeceshin taasna waa ka soo hadli doona haday jiraan gabdho ma arkin inay shaqeystaan jecel oo wax badan aan haysan hoos inay ka bilaabaan rabaan